soo dhawaada soo dhawaada annaga wax aragnay soo dhawaada saaxiibayaal dhamaantiin kulligiin dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan dadka Soomaaliyeed oo halkan igala socda aad baan idin salaamayaa kulligiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada live-ka haddaan idinka hor dhaco oon rabo inaan idin wax yar idinka taabto sababta aan live-ka u soo galay iyo live-ku wuxuu ku saabsan yahay kalma jiraa hal share gareeyo 200 300 ka yar wallahi ma rabo inaan caawa aan programkayga ka yar inaan uga hadlo iyo ka badan mooyaan ma doonayo waayo aad buu ma aragtay runtii waa wax u baahan in dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ugu xidhan kulligood inay si gaar ah ay u fahmaan bixirta ma yar taagnan markii isku xirmantu waa bixir ama aad sugna waxa hawl yar ku jira live ku jira ayaa baaqada soo bataan soo baxay marka kulligii waxaan ka codsanayaa inaad si share gareysaan islaanta iyo dadka iga daayo wicitaanka kaadhadan ku dhacday waxaan rabaa inaan live-kayga toos u guda galo oon idin faahfaahiyo sababta aan live-ka u soo galay waxa igu kalifay inaan maanta live-kan soo galo iyo sidee wax u dhaceen marka koobaad horta live-kan wuxuu ku saabsan yahay naagtan wasiiradan lagu magacaabo wasiirada dhalinyarada isboorta Khadiija ma fahmaysaa عدة وسيرة طيب وسيرة تموت أنا وسير نمد وحبي جماعة قصيان لكن وأنا كهذا قصب صدق إلى دقنت صي إلى دقنت وأنا كهذا وح أيضا قصيح اللي معنا دي وزير دي وحصلنا فوق وحبي جماعة جلانية أيضا أطلع موقته عدة وسيرة طيب عدة حلوان طيب I don't care أنا وحصل وح أيضا قال ملهن هلا شركة لايف كان إنه قارن على ولبه وحويا سوى واحد عن وحسيل هذا وقتين وح مالمها السعودي قبل قابو أما حفلات كصافسن لأن يرد الصوماليات شروين اللي قبني أو أي كوك كليماني نمان قبل هذا يوم حال ده هي عاصمة الجديدة هذا واسيد أيضا هذا الكود تقول أنا وده ما قرني حفلات ده اسمها السعودي كنتي حفلات ده ما أنت أي هيد ولي حتى حفلات ده ما أنا ضماني هلا شركة راي سيد واحد عن مركب أنا وادوكتين قف مزولة أفاريه سمقلو لكن وحديث قفك وحالي هدوكو قنينو قنيو ولا قنينة هدو دكتكو عن كاقوي عن ولا قوي سمين ها هلا شير قرايو سداس وين سلانتاس ما انت انا حفلة داس انا ما ظهرت مرهبين وقت حل الدنبا انا قو اسكو هردو قرقي جوال وحايلا صاحد لانك الله انا معنى لا وحايلا صاحد وحول انو انا وانا مقانهاي ميال بانشراء وحانو باهانهاي kooxdii hogoladu waa bari baa meesha lagu haystaa inaad meeshii tagto hawshaan aad si qabato siina furdaamis waayahan ku walaal waaya sidoo sameey waan soo baxay meeshii hotelkii baan mid intaan dadaali kari waan dadaali dhalinyaradii dadkii meeshii gudihii waan u fasaxnay saasan gudihii ku galay hala share gareeyo live-ka ma fiicna dadka in la kala saaro dadka in la waxeeyo qofka in si gaar loo xumeeyo si gaar loo waxeeyo ma wanaagsana naagtaas waxay naag wasiirada naag xildhibaanada xasaanad leh abahay tama way xafladii waan tagnay meeshii tiknikada farsamadan joogay hawshii baa wax ka farsameynay qof kasto shirka jooga makhraati uu ka aha dhalinyarada meesha joogtay makhraati bay ka hayn dadka wax duubay makhraati bay ka hayn inaan meesha farsamada joogay oon xafladda wax ka hagaajinay makhraati baa laga wada aha
dadkii waa laga yaabaa dadkii xafladaas goobjoog ka ahaada inay hadda live-kan daawanayaan qof kastoo aniga si daalaca ii raacsan oo idhahaya cabdi waad khaldan tahay waxaanaad ka hadlaysana waa khaldana dib uu kasoo ogaan karaa arrintaana dib uu u baari karaa hala sheer gareeyo live-ka anigu fanaan Soomaaliyeed baan ahay meeshaas waxaan suugaanahan oo nagu soo talagalay ma aysan jirin suugaantaas dib u dhiska dalka iyo dhalinyarada kaalintooda ay ka qayb qaadan lahaayeen baan meesha u imid oo rabeen aan uga qayb qaato suugaanteeda maxaa dhahay shuruud la'aan bidiin shuruud sidaas darteed baan u imid aniga xafladii waan imid nimcan hilaa banaanku joogay wuxuu walaal kooxdan soo diyaarinay inta kooxda imaanayaan aantadii isxilqaanood ugu talagashay barnaamijka siiqad anigana banaankan maartay dadkii waan soo diyaarinaya sidaas aan isku ogeyn hawsha sidaas ahayd hala sheer gareeyo live-kan hala sheer gareeyo saasaan isku ogeyn gudaha sidii bay ahayd waxaan xarooday 7 saac duhurnimo ayaan meeshii gudaha galay ilaa waqtigaan nila hadlay 20 daqiiqo hor markaan wax soo dhigay waxaan joogay hoolkan ku sugnaa xafladda ayaan wax ka hagaajinay waxaa soo galay barnaamijkii weesla soo socotay hawshii soo socotay madaxdii qaranka soo gashay waxaa joogay ra'iisul wasaaraha waxaa joogay golihiisa wasiirada qayb kamid ah xildhibaanada joogay laba taako sameeynan jirin aniga stage kan taagnaa farsamada ayaa wax ka hagaajinay dad badan oo idinkeedan kamid ah waa laga yaabaa live-ka inay daawanayeen barnaamijka xafladda meesha ka socotay dad idinkeedan kamid ah waxa laga yaabaa inay daawanayeen oo ay makhraati ka noqon doonaan oo meesha joogeen wala fiirsad hadalkaas waa laga yaabaa meesha inay joogeen inay daawanayeen xafladda waa laga yaabaa madaxdii way soo gashay xafladdii meesha way bilaabatay qoladii barnaamijka daadihinaysa way hadleen markii hadleen way ibdo xadha markaan barnaamijka daadihinta aan dhameeyno waan kugu soo dhaweynaynaa waayahay baan ku wada ayada xaggaasay fadhiday meesheeda iska fadhiday ra'iisul wasaaraha la fadhiday qof kasta maca ra'iisul wasaaraha laftirkiisa xasan cali khayre makhraatibu ka meeshu fadhiyay aniga ma garanayo habartan idulminayso inuu loogaa in kale ana ma aqaano runtaa fiican moogtahay laakiin wuu la fadhiyay meeshuu fadhiyay wuuna u jeeday marka intay soo kacday aad tiri ay dhalinyarada ugu soo dhaweyn leeska inta soo qabsatay bay tiri habalada waa bari markaas gabadhi barnaamijka daadiinaysa markay tiri cabdi baan ku soo dhaweynayaa oo inoo dhaantaynay maadaama idin cadisteen live-ka hala si sheer gareeyo saaxiibya anigu waxaan rabaa inaan si afeef idinku sheego anigu cid gaara lama dagaashani qofaan hadda mucaaradsanay ma jirto cidaan wax u dhimay ma jirto laakiin habartaa sida ii dulmiday iyo sida wax u dhaceen bas baan rabaa inaan idin sheego wax kale ma rabaa anigu waayo idinkan in la idin dulmiyo ma jeclidin ilmihiina in la dulmiyo ma jeclidin qof dhalinyaro oo fan iyo suugaan ku dhex jira oo suugaan soo diyaarsaday waad ogtihiin markii hees la diyaarinay rafaadka loo marayo programkan iyo isxilqaan iyo barnaamijkan kadaata ololaha nabadda iyo isdhexgalka bulshada baan dadaal ku bixiyay oo aan u dhafroon habeen noo soo jeeday inaan suugaanteeda uga qayb qaato suugaanteeda oon qayb ka noqdo barnaamijka waan imid markii la igu soo dhaweeyo la ii yeedhay oo la rabay inaan barnaamijka aan qayb ka qaato la ii yeedhay bay leey soo qabsatay ra'iisul wasaaruhu naag fadhiyay markaasay tiri habalada waa bari ha loo yeedho habalada waa bari ha loo yeedhay tiri waayahay baa layidhi gabdhii barnaamijka daadihinaya qof soo dibto waxaa tiri ninkaas hala kansal gareeyo shib baan idhi makarafoonka waan haystay madaxdana 2 tallaabo iman jirin 1 tallaabo يعني إسلامتاس وسيرة أنا كفيري أنا مرة بعد أنا دجالك إيو محل حناقة هي أنا وحياها قار أفكار كصوب عن وحن سكوتي إلا حد أنا نسحدده أنا قم ميه لانقاب ميه ما فهمتي ضد كلا تكورنا ميه أنا أيضا هدي ضد كلا تكورة كذا لطي ميه أنا ضد كسر رنت أول شيء موجود خديجة ديري أنا لا دير أنا هاي رنت أول شيء فناني ما مركز لقى صوت ضد بعد كذا شيء نن ضد كيسو أي تريد كم بدي ما أنا رنت في عن موجود ما هي ضد كلا قلت تريد بدي حتى رواينا أيضا ما قشوا أيضا هدي ضد كلا قلت تريد بدي ولا أبيز جرايو ما أنا وما ضد كاس دير رنت أول شيء هبرتان حنا رنت أول شيء خديجة ديري ويسوي استاكتي مركز سوي استاكتي وحاتي استيت كي يقدك حنقول هبر محا خلدان يقدك بيتي استيت كي ماشي عليه خلدني هبر روحانا فنان صوماليات مان هاي ماشي انتظاتنا قرآن لكم آخرنا والله هسيا إلهي باي أركو عن وفت ده أحسن كنا انتهينا نبين شيئين إلهي باي أركو أم خراتكا وحنقول هبر معاني دي فنان صوماليات مان هاي سوغان بانو صاد ديار صدي
waxaan rabaa suugaanteeda inaan uga qayb qaato barnaamijka say wax u jiraan xaggaad igala dagaashan tahay ka deg bay tiri meesha bal ilaahay baan ku dhaarshaye hadalkaygaa si fiican u dhuuxa xasan cali khayre wuu fadhiyey dadkii isaga la socdo dhan way fadhiyeen meesha way wada joogeen ma garanaysaa dadkan daaqadda iga firsan taleefonkana wuu iga dami rabaa hala shargarayo walaal sorry walaal qofka ku qalday okay sorry waay walaal fiican iga tag hala shargarayo waxaan ku idhi say wax u jiraan nimcaan hillaac baan u yeedhay wuu joogay meesha wuu joogay ninkii meesha iigu yeedhana asagu ahaa waanu yeedho waxaan ku ri nimcaanoo kaalay maxaa khaldan walaalow islaantan xaggay igala tahay anay la dagaashan tahay war hooya war xaggay kaala dagaashan tahay naagta waa bisla socoteeni xaggay kaala dagaashan tahan ku idhi xaggay kaala dagaashan tahay ninka ii yeedha adigu ahaa ma xaggay kaala dagaashan tahay adiga iyadu waa isla ogtiine maxaadse iigu yeedhaysa habartan tadaata wasiiro isku sheego dayuusadda oo maxaa la criticismka samaynayso oo dadka kala takooraysa maxaa ka khaldan baan ku idhi anigu islaantan war ilaahay amarkiisu badana jaajarramaana wadan miya maxaa ka khaldan baan ku idhi khadiija deeriye maxaase anigu fanaan baan ahaye waxaan dadkan heesayana waa fanaane maxaa khaldan waan u sheegay nimcaan 10 jeer baan u sheegan ku idhi islaantan wax khaldan bay samaynaysaa agaasimihii fankii hobalada waa beri adiga ahee haddaad tuuga loogan habartan tadaata anaa meel iska saarayo ma fahamtay waad ogtiin anigu suugaantayda ummaddaas Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii codsatay oo meesha jooga makhraatiba ka yihiin ugu yaraan 200 oo dhalinyarada meesha fadhiday oo dhammaan gobolada ka yimid fankaygina xiiseynayay aadna ii taageerayay suugaanteydana la dhacsanaa oo rabaan inay maxaa lahay suugaanteyda ay maxaa lahay aan la wadaago la sheergaray anyway islaantii sidaas bay samaysay niman yahoon ummadda Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed dadkay daawan waxaan u sheegayaa anigu live inaan ka hadlo mar hore aan joojiyo runta idin sheegayaa qof shakhsi aan inaan personal attack ku sameeyo waan joojiyey mar horaan joojiyey waxaasoo dhan ilaahay baa igoog inaan live soo galo oon barnaamij noocaan oo dambe aan ka hadlo ama aan qof wax ka sheego waan joojiyey ilaahay baa arka laakiin ma sax baa ilaahay baan ku dhaarshay 1,100 baa daawanaya ma sax baa inay islaantaas weyn oo wasiiradda oo xasaanada leh xildhibaanada inay saas ila dhaqanto ma sax baa waanu sheegay dad la taliyaasha ra'iisul wasaaraha waanu sheegay dadka miidiyihiisa halwadanada aanu sheegay waxaan ku idhi islaantan sidan bay ila dhaqmaysaa waxaa la habartan makhaayada ayadaa wadata ayadaa shidanaysa waxba kama qaban kara cabdiyow barnaamijka sug baa la yidhi barnaamijka anigu waxaan ku idhi ma sugayo taleefanadeedaan qaadanayaa waana iska baxayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ma waxaan joognaa nin baa wuxuu ii soo qoray ma raba qabiilana sheegay hebelnimo saasay islaanta kula dagaashan tahay war waxaan ku idhi fanaan qaran may ma fahamti xamar haddii la yidhahdaan aniga minority kama majority baan kahay runtaan kuu sheegayaa intaasoo sanaan joogay ma fahmaysaa dagaal hadday noqotana cid dagaal wax iga qaadi karta ma lahan hadday dagaal iyo qori dil noqotana dad ayada ka laan dheeraysan oo maxaa la dabajaxyo gawaarida u saariyiin baa waxba iga tari waayay maxay iga taraysaa habartan xunta maxay iga tari ishak maxay khadiija diir hadda aniga taraysaa maxay sigala dagaal hadda hay soo wicina hadda ka hor SYL baad markii saan oo kale igu sameynaysa khadiija diiri anagoo la ii yeedhay la casuumay ay hor istaagtay maxaan ka wataa ii sheeg waxaan ka wato waxba kama wataa anigu makarafoonka inaan kula dhigo waan maxaa la waan sameyn kari makarafoonka gacantan ku hayo waan sameyn kari wax walba waan sameyn kari laakiin ixtiraam iyo inaan iyada meeshan kula doodo inaan iyada kula doodo ma rabin ma joogna xilligii madaxda qaranku ay fanaaniinta kala saarayeen ma joogna xilligaas waa laga soo gudbay haddii been la isu sheegayna hala sheegade been haddii la isku sheegay hana loo sheego been haddii la isku sheegayo habartan oo dayuusadda waan caynayaa xaq baan u leeyahay inaan caayo because naagtan way dulmiday wiil yaroo dhali kar nima hadda wuxuu soo qorayay waa naag anigu way dhali kartaa laba jibaar way dhali kartaa sooma way dhali kartaa de marka aniga iyada yaa la rabay inuu weynaado de ayadaa la rabay
ayadaa la rabay inay maxaa dhahay iga weynaato ixtiraamto nin dhalinyaro oo fanaan oo waxaan ahay maxaa dhahay hadda anigu ma joogo waqtigii mikrofoonka la igu ciilay anigu caan baan iga badan intay taqaana haddaan meel iyada joogto kees waayna de meelo ka badan baan ka heesay 54 dawladood baan ka hor heesay oon ka hor dhaantay haddii yacni meel stage meesha ugu sarreysa level hadday jirto waan gaadhay yacni laakiin anigu suugaantayda iyo waxaan rabay inaan ku cabiro dad halbeegayga maxaa dhahay halbeega aan rabo suugaan horumarka inaan ku cabiro de xaq baan u leeyahay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed inaan waaniyo oon suugaanta Soomaaliyeed la wadaago xaq baan u leeyahay war ma ceeba war ma khaldanahay miyaan khaldanahay ilma adeeryaalow ma fahmaysaa gudoomiyaha gobolka uu fadhiyay nin baa soo xasuusiyay gudoomiyaha gobolka uu fadhiyay fiiri wasaare uu fadhiyay xildhibaanaha fadhiyay wasiiraha fadhiyay markay saas ugu sameeynayay laakiin kuma dambaabayo ma dhahayo khayre ama maxaa dhahay wasiirada meesha jooga way loogiyiin ma dhihi karo de ma dhihi karo waa dulmi inaan dhaho hebel baa loogaa cidna lama inoogeena jaabkeeda hadday rabtahayd ma anigu qof ma dulmiyo dee alla mee walaal ma oynayo laakiin xanaaqa iga timbato walaal ma oynayo laakiin cadhada iga tidabaatay de iyo dulmiga islaantaas khadiijo deeriye anigu ciyaalo suuq maay nina khiyaaraanahay hadday iyadu ciyaalo suuqnimo iyo wax kale ula dhaqanto dee anuu anu ciyaalo suuqeynayaa aga habartan dee anigu iga maxay dhaantaa xasaanadu may leedahay anigana xasaanad baan leeyahay dee waa inaad qofka isku kalsoonaadaa anigu waan isku kalsoonahay ya laba tallaabay ma jirto hadda meesha lifeka uga jiro agtayday taagan tahay wallahi ana beenidii sheegan laba tallaabay ma jirto dee maxay qaadi kartaa waan uga soo baxay meesha waan uga soo baxay makhraati baa laga yahay anuu haddaan dulmiyo makhraati baa laga yahay weliba hadda waan oomanahay waxyaabo badan oo qarni way jirtaa videoyadana waan idiin soo dirayaa aniga imnoo ciyaalo suuq weligeyna qof ma ciilin qofna maana dhibin anigana ma jeclida qof inuu ciilo meel qof lagu ciilana kama imanin meel wax lagu ciilana weligey ma istaagin oo qof lagu maxaa dhahay lagu takoor lagu sameeyo anigu midda kale may dadka laga tirada badan yahay saas u ogaato ma rabo midda kale shakhsi wuxuu sameeyay inaan u gafo habartaas waxay ayada igu samayso ma rabo inaan dadka iyada ka dhalato kale aan ugu gafo ma doonayo dee waayo iyada ay dulmid iyaga imayn dulmin moogtahay waxay tahayna waan ognahay anigu nacamleeye may weligana qof fiiri xataa tusaale ahaan waa la dhihi karaa cabdidhaanto anigu waan ku qanacsanaan lahaa haddii la dhihi lahaa cabdidhaanto waa nin mucaarada waa nin dawladda ku kacsan waa nin maxaa la dhahayay waa nin dawladda ku kacsan xataa hadday dhihi karto cabdidhaanto waxaan ugu diidayey waa nin dawladda ku kacsan ya hadday dhihi lahayd waan ogolaan lahaa ama maba imaadeen meesha ma aanan imaadeen war ilaahay amarkiisu badanaa maxaan ka soo dooni lahaa maxay iga qaadi kartaa hadda habartaas anigu waxba igama qaadi karto laakiin waxaan ilaalinayay xasaanadeeda wasiirnimadeeda xildhibaannimadeeda carwa kaase ha la yidhahdo cabdidhaanta waa beenaale waxaan diyaar u ahay xitaa xabsi anigu intaan lifeka ku jiroon xanaaqsanahay wax alla wixii gefa oo iga dhaca nin xanaaqsan baana wax kasoo qaad ma lahan soo maydaa garan ma wax kasoo qaad ma lahan laakiin waxaan ahay nin kumanaan dhalinyaraa ku xidhan dad Soomaaliyeed ku xidhan yihiin oo la fiirsadaan ahayniyo oo lagu xidhan yahay waxba kama baraya habartaas ma fahmaysaa lacagna uma baahni jaabkayga lagama weynayo lacag dollara shilin Soomaali iska badaa dharkaas baan wataa qaaliga gaarigaas baan wataa qaaliga maxaan uga baahanahay markaan u xaflad kaliya wadaniyadaas iyo Soomaalinimadaasaan meesha isu tagay anigu ya wasiiradii iyo la tali anigu waan u sheegay hal la gaarsiiyay xitaa fariintan Xasan Cali Khayre wuu joogay wuu yaqaana shakhsiyan wuu yaqaana waan la xiriiraa wuu og yahay way la fadhiday markay stage-ka lagu soo dhaweynay wuu jiiday markay diidaysana wuu jiiday maxaa la wuu jeeday ish ruuxan naga xanaajinayaan wuu arkayay dee anigu ma aqaano in been la isku sheegayo in la isdulminayo dulmi iyo waxaas anigu meel la isku dulmi ma arkin dee
maxaan uga baahanay anigu dawlad maxaan uga baahanay anigu waan shaqaystaa sababtase dawladda yaana gaadhin habartaad maxaa la ciyaalo suuqadda ay waxaa samaynaysa maxay tahay maxaan kaa leeyay ma kursi baan ku haystaa ma qabiil baan ku haystaa ma xilkeedaan ku haystaa ma xasaanadeedaan ku haystaa anigu waxba kuma haystaa anigu fanaan baan ahay taalantigaygaan ummadda la wadaagaya dee taalantigayga inaan dadka la qaybsado oon dadkaas uga qayb qaataan raba anigu wax kale ma doonayo taf bay ka yihin meeshan way wada daawanayaan kulligood wasiirada iyo xildhibaanada way haw sheegaan carwakaas hala weydiiyo hadday tiraahdaa cabdi waxaas iga waxeeyey hala soo weydiiyo hala soo ogaado ها وجهي توسي ولا حناقي دغالك iga tira batay markaan xanaaqo wallahi billahi hatta aan naftii ma liqi kare wallahi saanta ma dulmiga anigu dulmi ma jeclide waligeena meel wax lagu dulminayo ma istaagin in hatta qof la dulminayo arki ma jecli maxay bal adigu arintaas ka jawaab anigu kumanaan malaayiin Soomaali baa igu xidhan maxaan ka bariyaa ii sheeg haddii laakiin dulmi iyo been la isu sheegay hana loo sheego been hana loo sheego wallaahi oo billaahi oo talaa aanan ka gabanaynin maxaa la dhahayay kama gabanayo baan ku uri weligay allahayna kamaanan gabanin day kama gabanin anigu wax runa kamaanan gabanin cabsina kuma dhalan anigu أنا اللي عبسينا مرة ندل عبسينا كمان دلنا دانو أو بيانا أو محل هاي العبسيو كمان دلنا نو حتى قبيل تكتويان ما فهمت إيسا حبينكم بدوان صعنا ما فهمتي لكن وحن كان لنا واحد قرن نمضى صومالي نمضى أنا جو واحد ماشي وتكلم واحد لأن يرى الصومالي دينا سوقان تيد اللي هو ذاك بس واحد كلو ما ننتقن نبانا يجري نمعان هلا يجري أنت مسؤول كا حبرتنا الله هذا المنكوري aniga ayada la hadlay qoladii cameramanada iyo TV-yada way wada joogan dhalinyarada Soomaaliyeed waa la iga helayaa dad way ii soo diri doonaan qof kasto ay daawanay dhalinyarada kamid ah ay soo tiray video iga haya markaan stage ka taaganaa bullshit aruuxan maxay ahaaniyo laahi billahi weliga ya Allah waxaan kala maan arag goorma laga tagay waxaas ya goorma laga tagay waxaas dadka in la kala sooco goorma laga tagay goorma anaga fanka xeer baan leenahay anaga fanaaniin haddaan u nahay ya xeerka aan leenahay wuxuu yahay fanaan hadduu meesha imaado in lagu casuumo barnaamijka laga qayb galayo xeer baan u leenahay anigu habartaas daba dhilif ma yihi hooyadood ha wasaan ayadii inta u shaqeysaba dee hooyadood ha wasaan na allah harkiinu ku yaala marka dhalin dadka Soomaali dadkan hadda live-kayga daawanaya dib baad ka arki doontaan waxay habartaas ku dhaqantay fiidiyoyadooda waa la hayaa cameraman joogay TV-ya joogay dhalinyaro badan baa joogtay dad kale la helayaa dee madaxda dhanna way joogan hala share gareeyo live-ka ra'iisul wasaaraha joogay laakiin ma garanayo inuu habartani dulminayso wax ka ogaa kuwa meesha jooga quraan bay akhrinayeen war aniga meeshan cidina igu imaan karta kowdhe ma fahamtay hinna waxba igama qaadi karta anigu waan ka tagay brother waan ka tagay waxaas habar khadiijo kale mar horaan ka tagay anigu waxay dheerta mala xasaanadu ma dheertay bas anigu xasaanadeeda wasiirnimada xildhibaanada waan ku ixtiraamayaa laakiin shakhsiyadeeda fogofde waxba igama gelin aniga waxba igama gelin war ilaahay amarkiisa badana dadka qaar waxay soo qaan wasiirada waa maamo war haday maamada way dhali kartaa iyada la rabay inay ka xishooto wiil yar oo dhali karto oo talent ilo fanaana marka inta masrax ugu imaday orada iga dig ma ku taageersan tahay aniga afkaygu soo fiirina daayada fiiriya aniga hay fiirina ayada dulmiga ugu sameeyay fiiriya nimayo Soomaali waxa dhibaato gambinay waa dulmiga la isku fiirsanayo
weligiin iyo alliin qofka hadlaydu soo fiirsan qofka dulmiga sameeyay ma fiirsan Soomaaliyay ma fiirsan weligiin iyo alliin dabeecadaas leediin dadka hadda meeshan wax ku soo qoray kulligood habartaas difaacayaan aniga oo dhalinyaro fanaan oo dhalinyaro talent leh islaantaas way iga lacag badan tahay bullet proof ay wata xasaanad bay leedahay iyada iga xoog badan ma fiirinaysaan iyada aniga maxaad iga fiirinaysaan in dhalinyaro miskiin aan inta diil islaantaas way ka khaldan tahay wayna ku dulmiday hadda waxaad soo qoraysaan sidaas iyo sidaas haddii qabiil wax la isku difaaca xagga askariga aniga qabiil difaac waan leeyahay Soomaalinimo dad ku difaacaysan iyo fanna waa halkeeda ما فهمتين مركا حالك واسداس لا سودا anigu haddu maxaan dhahay aan oomanahay gaarigan biyo ima saarna oo man tacbaan lahay waayo intaas ay goon xanaaq dartii ma fahmaysaa nin la dulmiyay baana nin la dulmiyay waslaan waayo la dulmiday yaa ma fahmtay marka sidaas weeyaan xaaladdu dadka kale waad mahadsantahay Suldaan waad mahadsantahay dad garabkayga ma weynayo anigu wiilal adiga dadka soo qoray wiilal war aniga wiilashooda iyadaba waxba igama galaan anigu yalla soo wicin aniga wallahi oo billahi xasan cali khayrat haduu soo wicin inaan diyaar aan inaan islaanta gar la galo oo ilaahay goog yahay wax badan oo waan qarinaya waxa ma sheegin anigu hadda laakiin waan daalanahay waxaan rabaa inaan guriga tago nasto ayaan doonayaa say wax u dhacaan idin la wadaago laakiin Khadiija diiri waa dulmilay weeyaan waa cadeeso ma aha qof wanaagsan wallahi ma qof wanaagsan waa qof xun weeyaan oo aftaana laakiin afkeeda ma sha waa beenalay afkeeda ma laysa dadka afkeeda ku gadataa anigu hadda marraba dawladda inaan siyaasadeeda galo oo wax ka sheega ma doonayo laakiin naagtaas waa dulmilay waana dulmiday dulmigeedana xasan cali khayr maqraatibu ka uu fadhiyay wasiiradiisuna way fadhiyeen la taliyaashiisuna way fadhiyeen xildhibaanaduna way fadhiyeen ma idinahay hebel dadkii barnaamijkaas qaranka dhalinyarada loo qabanayay si hadii loo fiiriyo dhalinyarada qarankan kamid ahay oo speech kale si hadii loo dhigo weeyaan fanka markii laga soo tago ilaahay baan ku dhaarshamaan xaq u lahayn anigu waxa dhalinyarada kale xaq u leeyihiin macdaan baan ahay macdaan baan anigu maanan xaq u lahayn dhalinyarada xaq u leeyihiin Soomaaliya runta ilaahay baa isku jecel runta sheega oo qofka gar la gartiisa siiya qof la dulmiyay waligiin ha baacsanina aniga soo fiirnin dhalinyarana way dhali kartaa meesha leedan waa hooyada oo kale balda fiiri ka fiiri aniga inay dhali karto walu fiirso iga awood badan tahay xasaanada ay leedahay xildhibaanada ay tahay xaggaas ka fiiriyano xaggaas ka fiiriya qof waa xusan ma fahamteen marka xaggaas ka fiiriya weligiin yaaleen dulmiga horboodina de waxaan anigu ahay aniga isku ma fahamti wax walboona hayna aniga isku hade kuniya 600 bay daawanaysa live daawanaysa ya intaas daawata de waa cudud aan leeyahay xasaanada aniga aan leeyahay ka badan bay daawan jirtay si hadii loo dhigana ma fahamteen marka waa anigu isku kalsoonahay wallahi oo billahi tallahi dad mas'uuliyiin waxay dhan iyo dadaan saaxiibanahay hagelin live kaas iska daa anaga la hadlayne anigu sharafta aan raadinayo kama raadinayo Khadiija diiriyaan kuuri hooyaday haday la mid tahayna waan ku ixtiraamaya laakiin sharafta aan raadinayo waxaan ka umada Soomaaliyeed baan ka raadinaya sharafta aan raadinayo laakiin kama raadinayo habartaas kama raadinayo mana rabade ayada ma doonayo kama raadinayo sharafta aan raadinayo kama raadinayo Khadiija diiriya ana sharaf igu filan meesha waan ka qayb galay wixii xoog iyo xiniyo oo qaran leeyahay waan ku istaagay waliga yaalahayna
volunteer kaas wax ku sameyn jiray anigu ma fahamteen haddana sidii baan ku sameynaya diyaar baan inaan qarannimadaas ku sii shaqeeyo xumaan iyo maxaa la dhahay takoor ayada ay samaysay ugama istaagayo maxaa la dhahay qarannimada iyo maxaa la dhahay qarankayga waan sii wadanayaa dhaantada waad dhegaysateen waa isxilqaan youtube-kay ku jirtaa dhegaysta isxilqaan maxay ka hadlaysaa cabdidhaanta isxilqaan yaa cabdidhaanta isxilqaan ku qor youtube-ka waad arkaysaa dhaantadaasaan ugu talagalay anigu isxilqaanna ma ahayn inaan dad garaba ku taageerayo isxilqaan anigu qof kasta oo jidka xataa nadiifiyo waa isxilqaan buu sameeyey anigu haddaan maanta gaadhigii intaan ka dego waddadaa nadiifo waan isxilqaamay taasaan suugaanteeda ku cabiroon rabay inaan uga qayb qaato wax kale ma rabin waxay diidayna taasay ahayd heesay iyadoo hobelada waa beri u samaysay oo xasan cali khayre lagu ammaanayo baa meesha laga qaad guud arrin guud baan watay wax guud bay ka hadlaysaa tayadu oo permanentia war ilaah haddii la isu nacamlaynayo hala ii sheega dee haddii la isu nacamlaynayo oo qof nacamleeyo aan meesha looga baahan yahay hala ii sheego waa run qalad weeyaan dhalinyaro soomaaliyeed oo gobollada ka timid baa joogtay isu wada timid si haddii loo dhiga dhalinyaradaasaan ka mid ahaa si haddii loo dhiga weeyaan maanan ahayn nin u xiso qaba microphone waad wada ogtihiin nin stage inuu soo istaago lacagna kuma rabin anuu lacag ma qaadanin dee runtaa idiin sheegayaa weliba hobelladu waa beriya nimcaan iyo lacag bay qaateen laakiin anugu lacag maanan qaadan runtaa idiin sheegayaa dadkaasaan sheegaya tibay ka yihiin ma aanan qaadanin lacag ma fahamtay xoogayga iyo xeeladayda iyo qarannimadeydaan rabay inaan ku shaqeeyo samaada garan taasaanan ku imid haddana sidii qarannimadeydii baan ku shaqeynayaa ma fahamtay macaldal iyo diyadda hadda laga soo maxaa laga sawacana aniga markii habartu ibaadilaysa nin walba arkaya xasan cali khayre arkaaye markii mikrofoonka xataa fiiri markii hadlaysa xataa ay khudbaynaysay waxaa tiri dadka marti sharafta fanaaniinta meesha jooga ay kamid yihiin kaltuun iyo iisheeg nakruumi iyo cabdidhaanta kulliga waan wada salaamaya intay dulmida haddana ay maxay dhahay mikrofoonka iga sheegay ma sax ba bar dhafoorkayga fiiri saakaan soo istaagay xafladdaas uma baahnin lacag hadday noqoto uma baahnin dee dadka qaar baa hadda waxay dhahayaan maxaa dhahay taas waa lacag dee dollar weeyaan lacag anigu uma baahni laakiin qarannimada waajibkayga qaran baan gudanayay saasaan u imid taasaan ku imid anigu nin lacag u baahay mihi wallaahi qof kasta oo hadda soomaaliya dadka dhalinyarada saaxiibada way yaqaanaan anigu laakiin waxaan caankooda nin walba ogyahay nin la dulminayo may anigu qofkii isku daya cabdidhaanta inuu dulminayo de hooyadii ku wasaya waad ogtiin waxba igama qaadi karo soomaaliya xaqa allah idin tuso waan idin ducaynaya xaqa allah idin tuso ma fahamtay xaqa allah idin tuso waxa xaqaana ka dagaalama dulmiga wuxuu ilaahay soomaali uga dulqaadi lahay xaqa kama dagaalamaan dee naag wasiirada oo xildhibaanada fanaan dhalinyaro oo taalanti leh u diiday inuu barnaamijkiisa ka qayb qaato oo ugu yaraan 10 saacadood taagnaa ayada la hadla aniga haygu soo taagnaanina ayada ay dulmiday ma fahamtay ciddii ayada nacamleeyo ahana dee ciddii ayada iyo wixii wataba de anaa wasa waxba igama gelin aniga xishood hadday noqotona I don't care anigu maxay ka galeen manima gabadh ka qabaa maxaa dadkaad sheegaysaan meesha way joogeen waanu sheegay waxaanan sheegin lifekan kumaanan sheegin wax walba waan sheegay soomaaliyay xaqa u dagaalama ilaahay ku dhaarshay aniga hadda anaad soo wada fiirinaysaan kala badh dadka qaar baa isu dhaanta xamar laga baahno war xamar waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalada ummadda Soomaaliyeed qof kasta u siman
فنان كستنا حق بولا ماشي ربان وتقو ومقالة صومالية الحمر ضد وحسوق حمر دان طلقة ما بهنو خديجة مع مركي كوبات حدي أيضا لو يدي والله هلا مركي صدحات ويقول سميسا سيداس ما الله يفسوق لي متكمل السنة دي بربك سوي لقتي والله ومركي صدحات وبالله وطلعي ومركي صدحات وسيرة خديجة ديري وسيرة دلنيرة سبارتيا أي أساس يقول سميسو ومركي صدحات ما فهمتي مركي صدحات ويان انت اصلا دور سنه كون maxaan soo hadlay live ku soo gali waay maxaan soo gali waay oo wax uga sheegay waa u dhii waay dulmigaas lagu sameeyay naftaada waxa jirto qaacida jirto mar waxa jirto qofka bini'aadamka naftiisa asaga uu dulminayo markaas waa goorme waa markii xaqaaga iyo maxal dhahayo dulmiga lagu sameeyo markaad ka dagaalami weydo ilaahay baa ku caroonayde waana dulmiga lagu sameeyay ka hadasha oo tira ma qaadan karo كودها حمر ومقالة الصوماليات مقالة قبيل معها ومقالة قرن مفهمسا أنا حتى مركي هذا كور عسكرت وإحنا نحمري ولا اسكت ديني قبيل لو بدل أرنت هذا وين ديدي والله وحن ديدي أنا وين ديدي وحن كور أرنت سيدا ذي نقداي الله يفضل بيون أرنمان وكلو هذا وين جوجي أيضا نسيدوكر وين جوجي مركز أصحابي أدنى ندين سلامة يا وشرف بان ندين هيا لكن ظلمي كديدي ولا لا يالو ها قفل الظلمية ضد قفك الظلمية قفك واحد ظلمية لا الله قفك الله الظلمية أفكار كسر تاجني ولقيني على ظلمي ما تفرستانه وحدد وسيرة وي وما وكله أيضا يدلي كرتمي كحشاته ما حد ميكروفون أنا يسوق بصنعنا وحول بولا أركي واركود ويدوبين أنا هيدا ما يوسف منيسي مركي لا الله سحت وندوبي وده استيت كده وندوبي وانا هيا هم كنت صيا أنا هيو ما صادق دونا هل كان صادق دونا ونلو ذاك دونا ما فاهم يسا وانا وعي خديجة ديرين نمعاوز كفي عين ما فاهم يسا ضدك ماشى حتى وجوه جاي كمية هيك أنا وصاحبك أصلا وحنا كمان أحيان ولا التنمية صاحبي شرف أنا هيا لكن مخاطبك ها مخاطبك هذا وأنا السلام يا شو